haweenka iyo waxbarashada markaad daawato warbixin ka hadlaysa amaba aad maqasho waxa laga yaabaa inaad filayso amaba ay kugu soo dhacayso waxyaabo badan oo aad iska weydiinayso haddaba saameynta iyo xiriirka ay leeyihiin haweenka iyo waxbarashada waxaad og tahay inay haweenku yihiin lafdhabarta nolosha waxaan isku daynay inaan wax ka weydiino haweenka iyo waxbarashada sida ay isku yihiin waxaanan wax ka weydiinay doorka ay ku dhex leeyihiin bulshada haweenku marka ay wax bartaan Marwanima Cilmi Cabdillaahi oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Nuur Qaadi ahna haweeney ka qalin jabisay jaamacadda Camuud baratayna culuumta maamulka iyo maareynta waatan iyadoo ka hadlaysa arrimahaasi doorka ay ku leeyihiin bulshada waxa weeyaan runtii haweenku lama qiyaasi karo haweenku waa lafdhabarta bulshada haweenka oo waxba hal qof oo qoys kaliya oo wax barto waxa tahay qof bulshada oo dhan wax baray marka haweenku runtii faa'iido badan ayay u leeyihiin waxbarashada qoys ahaan iyo muxuu ahaayay bulsho ahaanba waxana weeyaan haweenku inta badan waa kuwa marka lafdhabarta oo ah bulshada had iyo jeerna ku fikira sidii ay marka horumarin u gaarsiin lahaayeen ubadkooga iyo bulshadooda iyo qoyskooga haddii daawadi aad filayso ama ay maskaxdaada ku jirto in haweenku ay la kulmaan caqabado dhanka waxbarashada ah marka ay ku jiraan xilliga shaqo raadiska Umayma Nuur Gas waa mid kamid ah ardayda sanadkan ka qalin jabisay jaamacadda Camuud kulliyadda culuumta barashada arrimaha maamulka bulshada waatan iyada oo ka waramaysa inay jiraan caqabado dhanka marka ay ku jiraan shaqo raadiska caqabadaha haysta dumarka dumarka ayna u helin bajaaris fara badan oy jaarisadu ay kaga badan yihiin ragga waxay daba galayaan caaqilo oday dhaqameed wasiir ama cidii ay ku xeeldheerihiin ay ka oran karaan ba waxbaad ka daba heli kartaa laakiin gabadhii uma helayso jaanis inta leegba oo cadaadis baa dhinac ka haysta nafsi ahaan oo waxay leedahay dad odayga u tagto bilow ku soo baxaysiyaaba ama af Soomaali wanaagsan ba kala kulmi weyda markaas taas caqabada koobaad la oran karaa dumarka way haysataa oo raggii mar walba ay ka horeeyaan oo isleeyihiin raggii uu dhinacyo badan oo kala duwan oo ka helay fursadii laakiin gabadhii ayna jaanis u helaynin maxaadaan ama ay u noqonayso cabsi ama walwal xagga dambe kaaga imanaysa haween badan ayaa aaminsan xilliga ay waxbarashada ku jiraan in ay isku dhexdhigtaan haweenka iyo raggu ay leedahay dhibaatooyin badan oo ay ka doorbidayaan in haweenku gaar u dhigtaan xilliga waxbarasho iyagoo u arka in ay kor u qaadayso awoodooda aqooneed Ismahaan Carab Cabdi waa ardayad kamid ah fasalka afraad ee dugsiga sare ee Aadan Isaaq waatan iyada oo ka sheekeynaysa arrimahaas iyo ardayda dhinacayga ahba in ay ka fiican tahay hablaha iyo inamada isla dhiganay hablaha qura oon imika iyo berigii hore aan aad uga fiicanahay xagga maxay hayda waxbarashada iyo xagga kalsoonida iyo xagga markaan inamo aan ku dhex dhiganayay aan awoodi jirin inaan macalinka su'aal weydiiyo oon ka baqan jiray adaan ka israa macalinka su'aal weydii aan ka qajili jiray inamadan agteeda fadhiya oon sooran jiray bilow inamadan way ku soo eegayaan bilow qajilaad dhinaca inamada iga haysatay laakiin imika hablo markaan ku wada dhigano alxamdulillah aad baan ugu faraxsanahay horta inaan hablo khaas ku wada dhigano waxaan soo kale aad ugu faraxsanahay inaan imika waxaan doono macalinka weydiin su'aashan doono aan sidaan doono ugu jira tartano iskuulka laga qabto semesterka dambe ilaa imika tartano education oo la qabto iskuulka sanad walba ka baxaba jira alxamdulillah berigi hore waxaad arki jirtay hablo kaalmaha hore soo gala ma arki jirin laakiin imika waxaad arkaysaa hablihii oo kaalmaha horeeya ugu sareeyeen iskuulka tartankii education ka iskuulka laga qabto sidoo kale ku guuleystay markaas aad iyo aad baan uga doorbidayaa haweenka qaar aqoon-yahanka waxay waqtigan u arkaan inuu yahay waqti u saaciday horumarkooda ayagoo dhinaca kale ku muujinaya inaanay xaaladaha iyo wacyi jira aanay u dhameystirnayn hankii hanaaneed ee horumarkooda waatan mid kamid ah haweenka aqoon-yahanka ku nool gobolka Awdal oo ka waramaysa arrimahaas maadaama hablo ay lafdhabar yihiin gabadha intaas oo dhan la koriyay ay guurkeega 35 jir xataa ay u daysay dhashay dhalayd waxbarashada iyadoo hadaf ku socoto meel gaadhaysa in waxyaabo fair ay wax badan noqdaan imtixaanadu cadaalad noqdaan maxay haydeen ayaa wanaagsanaan lahayd bishaaro bada jaamac TV-ga caalamiga ee badda cas 24 TV magaalada Boorama